الله الرحمن الرحيم وليين ما aragteen gariga cad oo laga helay dhul ay Soomaalida ay leedahay walaalayaal halkani waa la soco channel waxaan idin la socodsiinaynaa wax kasta oo muhiim ah oo soo kordha gariga cad oo ah xayawaan naadir ah ayaa laga helay dhul ay Soomaalidu leedahay dhulkaas oo kamid ah dawladda wadanka Kenya waqooyi bari siiba kaynta weyn oo loo yaqaano Boni Forest mise kaynta Boday waxay dhan tahay masaafo ahaan 1339 kilomitir oo isku wareeg waxaana maamulo booliska Kenya qaybta ilaaliso duurjoogta ee loo yaqaano Kenya Wildlife Service KWS dawladda Kenya waxay u diiwaan gelisay kaynta weyn ee Boday sanadkii 1976 inay tahay xaramka xoolaha ee xayawaanka siba maroodiga يعني حرم waxaan u leeyahay waxay ka dhigan tahay dood ogtiin xaramka lama ogolo in xayawaan lagu dhibaateeyo ama lagu dilo qofkii xayawaan ku dila xaramkana waa inuu soo magdhabo kaynta weyn ee Boday waxay qayb ka tahay kayn xeebeedka ku tirsan badweynta Hindiya ee ka soo bilaabato waqooyiga Zanzibar wadanka Tanzania markaad Soomaaliya joogto waxaa la dhahaa badamadow soo ma garanaysaan meeshii ay maxaakiimta ku soo dhuuman jireen markii ay maaragtay ay ku taalo Ras Kamboni meeshaas ayaa la dhahaa marka badada lagu sheegayo reewaamaha dadka la dhaho macnaha lahajada afka Soomaaliya kamid ah baddo haday dhahaan waxay ka wadaan kayn mise xid mise qarri mise duur mise doox qof kasta sidoo yaqaano iyo intu waxay u diiwaan gelisay hay'adda weyn ee qaramada midoobay waxay u diiwaan gelisay kaynta Boday inay kamid tahay meelaha ugu xayawaan badan adduunka laakiin se masaafada aan sheegnay ee 1339 kilomitir isku wareeg waa qaybta Kenya ka tirsan bis ah waa qaybta Kenya ka tirsan keliyata laakiin qaybta Soomaaliya ee aad iyo aad uga far badan kana weyn kayntaasi waxaa lagu magacaabay inay tahay biodiversity hotspot waa meel ay xayawaanaad badan iyo geedo aad u kala duwan ay macnaha ay ku jiraan waxaa ku nool kaynta Boday xayawaan dunida meel kale aan laga helin oo la yiraahdo carawle adduunka meel kasta waa laga soo fiiriyay waa laga soo waayay kuwii meeshan joogay kaynta Boday ayaa la qaaday waxaa la geeyay qaybo Kenya hoose kamid ah intaas oo xayawaan ayaa la qaaday 40 xabo meelahaas la qaaday waa la geeyay waxaa la sheegay dhamaantood inay dhinteen sababtoo waxay ku noolaan karaan baa la yiri Boday kale ay ku noolaan karaan kaynta Boday bis ay ku noolaan karaan xayawaanka carawlaha siiga ay u egyahay laakiin siiga uu ka weyn yahay siiga geesihiisa sidan bay u jiifaan oo macnaha sidan u nabayiin asaga laakiinse geesaha siiga uu ka duwan yahay geesihiisa waxa kale uu ka weyn yahay xayawaanka la yiraahdo goodirka uu ka weyn yahay kana ka weyn oo ka xoog badan waxa kale oo ku nool kaynta Boday xayawaan aad u kala duwan oo far badan ma soo koobi karna laakiin waxaan ka sheegaynaa jeerta way ku nooshahay doofaarka duurjoogta ah uu ku nool yahay doofaarka dagaagada lahaa uu ku nool yahay deerada iyo cawshu way ku nool yihiin gariga iyo baciidka iyo goodirka iyo maroodiga libaaxa shabeelka yeyda dhurwaaga xayawaan aad u fara badan oo la soo tiro koobi karin ayaa ku nool xayawaanka duurjoogta ah badankooda way ku noolaan jireen geeyiga Soomaaliyeed laakiin hadda waxaa ka soo haray badankooda magac bisa ayaa ka soo haray iyo sheekooyin tusaale ahaan hadda soo qaadato xayawaanka la yiraahdo wiyisha sheeka xariirtan oo ku jirta waa la yaqaanaa magaceedana af Soomaaliga uu ku jira laakiin wiil maanta
geyiga Soomaaliyeed ku nool ma jirto. xayawaanka waxaa dhameeyay colaado iyo qori ay Soomaalidu la ordeyso ayagoona caqli isticmaalaynin. caqli iyo cilmi ayaa adduunka lagu kala hormaray, laakiin ummadii Soomaaliyeed qori ayay caqli ka dhigteen. qorigana wax hadda ay faa'iido ka gaadhayaan ma laha. qorina ma soo saaraan, warshad qorina ma laha, hubna ma laha. laakiin dadkii kale hubka ay sameeyaan bay isku baabi'iyaan maalin daa'ina. baabi'inta kaymaha waxay sababtaa abaaro iyo roob la'aan, waayo geedaha iyo qawyaha roobka ay soo jiitaan sida la wada ogyahay. kaynta sida u qiimo badankeeda waxay ka mid tahay Jamhuuriyadda Soomaaliya, waxayna ku toosan tahay badii la gatay. waad ogtihiin badii la gatay, sheekadaas Soomaalidu way ka dharagsan tahay, laakiinse badda baad aragtay barigii ma laga fikiray. baddaas waxa ku aadan bari, qofka badda iska leh barigana qaadanay. bal eeg hadda khariidadan qaybta Soomaaliya ka tirsan siday u tahay. qaybta Kenya waxa ilaalinhayo booliska wadanka Kenya, laakiin waa su'aal ma jira dadaal ku aadan sidii loo ilaalin lahaa kaymaha iyo duurjoogta ku nool Jamhuuriyadda Soomaaliya. ruux kasta xil iska saar. waxaan ku dardaarmayaa videogan inaad faafiso si ay ummadda Soomaaliyeed u arkaan dhamaantood. waxa laga yaabaa in ruuxun u fikiro bal inuu sidoo waxa uga qaban lahaa